jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddanka Zambia gaar ahaan magaalada caasimadda ee Lusaka ayaa xaflad soo dhaweyn u sameysay Fiqi Bashiir Cabdulle Cismaan oo kamid ah hogaamada dhaqanka ee deegaanada Puntland dhawaana lagu caleema saaray deegaanka Jeedalow ee duleedka degmada Bacadweyn ee gobolka Mudug. Fiqi Bashiir ayaa 19 bishan soo gaaray waddanka Zambia waxaana ka soo degay gegida diyaaradaha caalamiga ee Kenneth Kaunda ee magaalada caasimadda ah waddanka Zambia ee Lusaka. waxaana xalay xaflad si heersare loo soo agaasimay laguna soo dhaweynayay Fiqi Bashiir Cabdulle Cismaan lagu qabtay xarunta caalamiga ee shirarka ee Mulungushi waxaana ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeeyo safiirka Soomaaliya oo fadhiya waddanka Zambia, safiirka cusub ee Soomaaliya oo fadhin doona waddanka Angola, mas'uuliyiinta jaaliyadda, ganacsatada, aqoon-yahanada, waxgaradka iyo waliba haweenka jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddanka Zambia. dhammaan dadkii ka hadlay goobta ayaa waxay dareenkooda ku muujiyeen sida ay ugu faraxsan yihiin imaashaha Fiqi Bashiir ee waddanka Zambia. إلهي ما هذا سكله إنه كل مية حفلة قيمة هي غاية بدل وإنه كسر دوين إنه اسم هذا كمدة وإنه جاي من صوماليا قبل كبوتلان ولا يراه فقي بشير عبد الله عثمان كسر دو زامبيا. فقي كسر دو ضد كان شعب كا وعاو هل كان يسوي من سروين تأنو وطلق فقي بشير عبد الله اسمان وكل ينيا مجاعة. ددوينا شرفت له هل كان يسوي من anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca dadweynaha sharafta leh oo halkan isugu yimid mudanayaal iyo mirwooyin dhalinyaro iyo waayeel waxaan soo dhaweynayaa Fiqi Bashiir Cabdulle Cismaan waxaan ku leeyahay ku soo dhawow dadweynaha halkan fadhiyo oo sharafta leh kusoo dhawow Zambia waxaadna u aragtaa si kalgacayl ah in lagu soo dhaweynayo oo lagu jecel yahay waana ku soo dhaweynaynaa waa naga niyad mudane iyo marwooyin dadkiina meeshan isugu yimid oo ikhyaarta dhammaan waan idin salaamayaa salaan ka bacdi waxaan khaasatan haddana salaamayaa Fiqi Bashiir عبد الله عثمان حنورنا يا وهرين فقي بشير سودو فقي نماذج ما عن أرنه وحاول يرين هرو سوجستي خاصة وحاول يرفع الحساسية تاريخ الشيء يسوع وعن كل يا فقي بشير كسودو فقي نماذج صوماليات ترباني فقي بشير شعب كيا كودبالدي dadkii Zambia idila yaa ku durbaan tuline iyaga wax ka doortay oo dhulka ku xiraye dugawdiyo salaadiin tayaan daraja sinay dhaqankeena duuga hayaan dhabudaanaynay salaadiina naga hoo masuul doora waa tahay Fiqi Bashiir صدوا فرحة بانو كوسدنا وسلامتا إسلام كافي ورانو كوسدنا إسين صدوا انتي صومالي ورورنتد حلك اللابو دي باي رامبي غياكو حافظا. ugu dambeyn waxa hadalka lagu soo dhaweeyay Fiqi Bashiir Cabdulle Cismaan waxaana goobta ka jeediyay hadallo dardaaran u badan isagoona dadkii goobta joogay dib u xusuusiyay maalmihii dawladnimo ee dalku soo maray iyo waliba meesha maanta la joogo waxa uuna Fiqi Bashiir kula dardaarmay dadkii goobta joogay inay u guntadaan midnimada iyo isu keenida shacabka Soomaaliyeed. maamulkii ugu dambeeyay aynu lahayn oo wax yar dadku saluugeen waxa lagu midaysnaa in maamulkan la rido laakiin siyaasad iyo dib u dhis iyo mustaqbal dadeed kuma aynaan midaysnayn natiijada midayn la'aantaas inuu ku dhacdayna waa tii keentay inaynu dagaal sokeeye abaabulno
midnimo keliya baa dib loogu soo celin karaa karaamadii iyo dadnimadii iyo soomaalinimadii layna ku yiqiinay horeyna aynu u ahay. maanta waxaa mahad ah ama 22 sano kadib inaynu maanta dawlad leenahay. dawladda aynu haysano maanta aynu toostoosinno taas baa keeni kadha in tanaasul la isu sameeyo wixii la soo maray gobolka kale wuxuu ka galay beesha kale waxay ka gashay in la isu qirto oo la isu calool xaarto oo muwaafaqo iyo midnimo iyo qalbisan iyo beer burcad la mariyay markaas oo imaan kara. markii intaas oo dhan la helo baa waxa imaan kara midnimo rasmiya iyo wada qabsi. kama aynu liidano goortii ardooyinka cudurkaan la yiraahdo la iska xudiyo baa waxa la yiraahdaa cudurkaagii la arag iyo caafimaadkaagii hal arag. war maanta dhibaatadeeni aragnay waxaynu soo marnayn aragnay war caafimaadkeena hal arag. taasaa wax qabad iyo dan iyo rasmiga lagu gaaraya. qof kastaana xil baa ka saaran. سيد مصدر Universal TV Lusaka.